Xogayaha arrimaha dibadda dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay soo saarista xayiraado fiisa oo ka dhana shakhsiyaad hadda xilal ka haya iyo kuwa hore u soo qabtay Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay mas'uul ka yihiin waxyeeleynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xogayaha ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii ka soo wareegtay markii xilmado xileedkiisu u dhamaaday madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan ku dhawaaqaynaa fulinta xeerka socdaalka qaranka qaybtiisa 112 ee 3C kaas oo diidaya inay fiisa la siiyo shakhsiyaad xilal ka haya iyo kuwa hore u soo qabtay Soomaaliya, kuwa oo la rumaysan yahay inay mas'uul ka yihiin waxyeeleynta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo dalku uu ka dhaqaaqi lahayd. Xogayaha dowladda Mareykanka ayaa sheegay in shakhsiyaadkaasi ay rabshado u adeegsadeen dibadbaxayaasha ay xireen ama cabsi geliyeen suxufiyiin iyo xubno mucaarad ah ayna boobayaan hannaanka doorashada dalka Soomaaliya. Waxa uu inta ay ku dareen in xubnaha qoysaskaasi iyo shakhsiyaadkaasi ay saameyn karaan xanibaadan dhankooda la saaray. Siyaasadan ayaa lagu dabaqi doonaa xubno kaalin firfircoon ka qaatay hannaanka qiyaamayn ee ku dhisan lagu sameeyay hannaanka doorashada Soomaaliya ama ay ku guul dareysteen inay gutaan waajibaadkoodii in ay doorasho hufan ay ku fuliyaan waqtigeedii ama ay beegsadeen suxufiyiin iyo xubno mucaarad ah iyagoo oo handadayo cabsi gelinaya xiraya ama la beegsanaya rabshado kale ayuu yiri xogayaha dowladda Mareykanka. Ma shaacin magacyada iyo shakhsiyaadka goorta ay hirgelaysa siyaasadan lagu soo rogay iyo xayiraada la saaray xogayaha Mareykanka, balse Washington ayaa ka dhawaajisay ilaa dhowr shakhsi inay la beegsato xayiraad isla markaana kuwa kale haatan ay la damacsan tahay. Hogaamiyaasha qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada Soomaaliya waa inay ka dhabeeyaan ballanqaadkooda inay doorashada golaha shacabka dhameeyaan 25 ka hor bishan Febraayo ee lagu guda jiro, taasi oo dhabaha u xaari karta hannaan dowladood oo firfircoon oo Soomaaliya ay yeelato, ayaa lagu yiri warka xogayaha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda u taageertay shacabka Soomaaliyeed. Waxaan naga go'an inaan kala shaqeyno sare u qaadida dimuqraadiyadda barwaaqada labadeena dal ayaa lagu yiri qoraalka Mareykanka. Sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda dowladda Mareykanka ayaa sheegay in wadada ugu wanaagsan ee Soomaaliya ay ku joogteen karta nabadda ay tahay in la soo gabagabeeyo doorashada iyadoo hannaanka doorashada la dardar gelinayo qaab hufan oo cadaaladana lagu saleynayo maadaama durbadiiba ay soo baxeen booq iyo wax isdabamarsiin lagula kacayo hannaanka doorashada shakhsiyaad gooniyana loo xirayo. Horay dowladda Mareykanka waxay uga digtay inay siyaasiyiin iyo sidoo kale shakhsiyaad badan oo siyaasiyiin Soomaaliya madax hore ay xayiraado saari doonaan haddii aan la soo gabagabayn doorashada, balse haatan inkastoo magacyada shakhsiyaadka xayiraadaha lagu soo rogay aan la sheegin, dowladda Mareykanka ayaa tilmaantay inay dalka ka galeen khiyaano qaran, wax isdabamarsiin, boob iyo dhac, cabsi gelinta shacabka iyagoo ku takrifalaya awoodda dowladeed, kuwaas oo uga digeen haddii lagu sii socdo oo shakhsiyaad kale lagu helay inay dhankooda tilaabo kale ka qaadi doonaan. Madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayay dowladda Mareykanka hore u sheegtay inay xayiraado aan laga baaqsan karin ee dalka dibadiisa ah ay ku xiri doonto haddii aan la soo gabagabayn 25 Febraayo ka hor doorashada Soomaaliya oo dalku u ah furaha xasiloonida iyo sidoo kale soo gabagabaynta xiisadaha siyaasadeed ee kacsan ee ka taagan xilligan dalka. Maalintii 9aad ayaa la marayaa, mana muuqato in la soo gabagabay karo doorashada waqtiga loo cayimay maadaama maamulada inta badan qaar bilaabeen doorashada kadibna way iska dhaafeen. Inta badan deegaan doorashadii labaad hayay maamulada haatan ku jiraan, waxaana maamulka ugu horeeya oo gabagabay doona qayb ka ah Koonfur Galbeed Soomaaliya, inkastoo dhammaantood kuraasaasi shakhsiyaad gooniga loo xiray. Hadalka dowladda Mareykanka ayaa ku soo aadaya xilli ay socoto doorashada dalka, haddana tan waa mid cabsi badan ku sii abuuri karta siyaasiyiin badan, madaxda maamul goboleedyada, xukuumadda ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday, maadaama ay sheegeen in sharciga uu ka weyn yahay qof kasta. Dowladana ay ku tilmaantay Mareykanka kuwa qaswadayaasha ka ah Soomaaliya inay sharciga la beegsan doonaan, iyagoo shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay dowlad wanaag, xasilooni, uguna baaqday dowladaha kale ee caalamka in loo gurmado shacabka Soomaaliyeed ee abaaraha xilligan ay ku dhufteen. siyaasadda Soomaaliya oo xilligan xayndaabka siyaasadeed goosatay
ayaa qofka kale ku eedeynaya madaxda iyo siyaasiyiinta inuu wada xadgudub dalka iyo dadka wax u dhibayo, balse xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa mar kale ku hanjabayo in shakhsiyaad kale oo badan lala tiigsan doono fiisax ka xayirid iyo dalku galeedyada badan oo haystaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale kuwa dowladda Soomaaliya waadii waqtiga loo asteeyo doorashada aan la soo gabagabeeyay. fadlan muuqaalkan daawada hadduu ku soo gaaro sii share garay saaxiibadaada kale la sii wadaag page-keena Soomaali Barays ku soo biir hadduu ku xiiso geliyo muuqaalka leegta noo saar saaxiibadaadana la wadaag mahadsanid.